دمانتو تيانو دافا عبلها دمانتو تيانو دافا waxaan ku sugannahay magaalada Nairobi dabcan waxaan soo dhaweynaynaa fanaaniintii Nairobi oo dhan iyo sidoo kale wariyaashii iyo reer Nairobi oo dhan dalmar farxadii ayaaba ka badbadato horta aad baa u mahadsantihiin taariikh hore baan soo xasuustay saaxiibkay dalmar wuu joogaa fanaaniintu waa noola joogaan Yusuf Beesana joogo oo waxaa joogo isma dhaanta way joogaan janaalada jooga abiyo waa joogaa kaamirmaanadeenna qaaliga ah raage cabdi gacanta fud waa joogaa baashi saaxiibka cabdi shukuur cigle oo lebdan waa joogaan asxaabtan marka waxaan dhignaa saaxiib soo gaabatay soo dheeraaw warkuu cad yahay horta dhammaan waadii waad mahad celinayaa kulligiin si aad u dhantihiin gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa walaasha England fanaaniinta oo dhan kulligiin channelada maxaan ku raadayay walaalkii ugu horeeyo raage hidle inaad gaabantaa waa ogaa ku dhan laakiin sideed number hoos u dhacdo wallahi brother waxaan ilaa waa ibn aadan waaye ibn aadan buura jibisa waxaa kaloo mahad celinayaa governor Ali Bunow iyo teamkiisa oo si fiican airportka gudaha ugu soo dhaweeyay staffka dhammaan shaqaalaha airportka oo asxaab fara badan oo aad soo dhaweysay family-koodna halkan joogay iyagana waa salaamaya kulligiin aad baad u salaamay Nairobi waxa kale shil qantay Rayaan oo kale Rayaan aad Nairobi dabcan anagana welcome baan ku leenahay Nairobi aad ugu bashaaraysan Nairobi wax badan habari maaliyaan saasa Nairobi meesheedu waaye magaaladeedu waaye aan u xiisay runtii maxaan ku raadayay dad fara badan oo aad waqti dheer soo keen dambeysay reer Nairobi islaahin baa joogo inkastoo wajiyada badankooda ay ugu cusub yihiin anaga xagga qofka wadanka cusub waxaan ana flight 13 qofka soo garanaa dibkaaga qabtaa walaalkay dalmar waxaan leeyahay welcome to Nairobi gacmo furug soo dhawow waxaan isku dambeysay habeenkan subax amarka soo baxay habeenkeeda waxaan leeyahay soo dhawow habeenku show qabanayna koofid oo soo dhigaa insha Allah marka hore wadin salaamay kulligiin aadan ugu mahadsantahay sharafta soo dhaweysay walaalkay dalmar aniga teedii marka laga soo tago adiga aad mahad celinaya ninkaana waxa waa in long term isku keen dambeysay saxaabada aniga ku soo gaaro waayigi meelaha ugu jooga hadda waxa aniga ka sideen welcome to Nairobi inta aan ugu soo dhaweeyay maanta aad baa mahadsantahay aad baan u farabadan saxaafadii oo dhan baa joogta YouTube Raage Cabdi baa jooga sidoo kale TV-ga RTN iyo CNN iyo sidoo kale Universal iyo TV-yada oo dhan baa jooga sidoo kale Shukuur Cigal jooga daynamadii YouTube-kii oo dhan iyo adduunkii oo dhan baa wada jooga magacyadu ma soo koobi karo laakiin dhammaantiin dhalinyarada soo xilqaantay oo ay timiday RTN ugu horeyso Universal SNN kulligiin aad baad mahadsantihiin walaalkay raage oo shaqadan wax badan ku soo jiray adigana aad baan ku salaamayaa dhammaantiin waxaan leeyahay I love you insha Allah waxaan noo balan habeenka sabtida aan isu soo nasano waxaan noo balan 15 insha Allah aad u mahadsantihiin Nairobi ana markii jacalkiina waa inay hayaa ka taxsadooyinka saaxiibka dalmar waan salaamayaa aad u mahadsantihiin ana Kenya la deganahay walaalkan dalmar soo dhaweynayna aad u mahadsantahay England iyo kooxdeeda iyo asxaabta kulli mahadsantiin thank you so much waxaan joognaa ku sugannahay airportka magaalada Nairobi ee Jomo Kenyatta dabcan waxaan wadada ayaa soo dhaweynaya anagu waan ku faraxsanahay YouTube-yada iyo TV-yada inta baad kala socon kartaan sidoo kale walaalkay Raage Cabdi isagana ayaad kala socon doontaan TV-ga RTN iyo dhammaan YouTube-yada soo dhaweynaa ceebna fanaanka ay soo dhaweynaa ceebna ma ceeb السلام عليكم magacaygu waa Cabdullaahi Cali Muuse fanaan soo dhawo waxa ku leenahay soo dhawo dalka Kenya adaa ku sugan halkan adiga ku taagan soo dhawo ceebna thank you mahadsantiin inta kale show insha Allah qaban doono ayaan kala xidhiidhi doonaa